Soo dhawow, maanta waxaan bilaabaynaa qisada jaariyad jacayl galay, qaybteeda koowaad. Sidan ayay ku bilaabanaysaa. Magacaygu waa Naciimo, waxaan ahay gabar la nool famil qaraabo koraad ah. Waxaan la noolaa muddo fara badan, isfaham waa iyo duruufo fara badan kadib waxaan go'aansaday inaan shaqo raadsado si aan nolosheeda u maareeyo. Subaxyada ka mid ah waan soo baxay, waxaana u imid saaxiibteeda Maa'ido. Kadib ayaan ku idhi, saaxiib, waxaan rabaa inaan raadsado shaqo oo aan nolosheeda ku maareeyo, adigana ii raadi shaqo. Kadib ayay igu tiri Maa'ido, waxaan kuu geynayaa maamo la yiraahdo Caaisho oo igu tiri gabar ii shaqaysa ii soo raadi. Wiil iyo gabar oo keliya ayaa u joogo, marka ka waran haddii aan kuu geeyo. Kadib ayaan ku idhi, waayahay ii gee. Isla markiiba way i waday, waxayna i geysay guriga maamo Caasho. Sheeko iyo isbarasho kadib waxaan ku heshiinay inaan guriga ka shaqo bilaabo oo aan ku noolaado. Kadib ayay igu tiri, guriga waa 4 qol, waxaana bannaan 1 qol, qolkaasna ku noolaaw adiga. Qaybteeni koowaad sheekada halkaas ha inoo joogto. La soco qeybaha xiga. Haddii aad ka heshid laag noo saar.